wafdi isugu jira guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Hirshabelle ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay wafdigan uu horkacayay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya Mawlid Mataan ayaa gaaray maanta magaalada Beledweyne wafdigan oo si heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne ayaa waxa ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa dhalinyaro عقال هوين قيبها كلا دوان بالشدة مقالة بلدوينة سو دوينت كدب وفدي ayaa waxa markaas ay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo waliba maamulka gobolka Hiiraan waxaana looga wada hadlay arrimaha doorashooyinka ee markaas lagu qaban doono magaalada Beledweyne waxaana magaalada Beledweyne lagu dooran doonaa 25 kursi ee gobolka Hiiraan ay ku leeyihiin xildhibaanada federaalka Soomaaliya odayaasha dhaqanka oo warbaahinta la hadlay ayaa uga mahadceliyay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed socdaalka ay ku yimaadeen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan sidoo kale odayaasha dhaqanka waxa ay sheegeen in magaalada Beledweyne ay diyaar u tahay in markaa lagu qabto doorashada xildhibaanada heer federaal inta maanta gudoomiyaha loogu sareeyo iyo kulligan waxaan diyaar u taaganahay inaan soo dhaweyno guddiga doorashada waxaan leeyahay markii ugu horeyso waa markii koobaad ee laba magaalo ee Soomaaliya ah doorasho lagu qabto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa qof iyo cod inaan ku tagnaan ilaahay baan ka rajaynaynaa walaalayaal soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada nabadgelyo iyo barwaaqo ku soo dhawaada gobolka Hiiraan ninkii hore u arkay iyo ninkii u dhineeda magaciisa bahis maqlay ee maanta joogaba gacmo furan ku soo dhaweynayna Beledweyne waa dad dawlad jecel dad nabadeed doorashooyinka raba inay meeshan ka dhacdo si cadaalad ay u dhacdana jecel waay waxaan idinku soo dhaweynaynaa dalkiina iyo dadkiina ku soo dhawaado waa idin jecelnahay waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa waliba inaan gooni isku wareysano nala joogteen ilaa dhowr habeen fudayd aad ku noqonin magaalada amnigeeda iyo arrimaheeda iyo dawladjeedka iyo dadkeeda aad dhaxmartiin intaasaan aad iyo aad u jecelnahay sidoo kale waxa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle Axmed Xasan Diini waxayna labaduba ka mahadceliyeen soo dhaweynta iyo waliba qaabka quruxda badan ee loogu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta wanaagsan ee quruxda badan ee loo sameeyay waliba annaga ka cudur daarayna qoraxda naloo taagnaay saacado badan aan ku soo daahnay safarka aan ognahay waqtiga lagu jiro oo waqti jilaal ah oo dadku saacado badan noo dulqaateen inoo taagnaayeen qoraxda taasina waxay cadeynaysaa reer Beledweyne siday ugu heelan yihiin guddigaas iyo doorashada heer federaal ee Soomaaliya qaybtay ku lahaayeen waxaan dhihi karnaa marka waa dad u diyaarsan doorashada federaal xaqqa ay u leeyihiin Soomaaliya heshiiskii madasha hoggaanka Soomaaliya ay ku gaareen inay ka dhacdo deegaan doorashada magaala madaxda state-ka iyo magaala madaxda labaad waxaan aragnaa inaad diyaar u tihiin waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii quruxda badneed ee aad noo sameyseen runtii waa soo dhaweyn miisaan leh muujinaysa inaad diyaar u tihiin inay halkan ka dhacdo doorasho waxaan ka cudur daaranaynaa in badan adikoo qoraxda noo taagnaa oo xoogaa yar dib u dhac nagu yimid dhammaantiin waad ku mahadsan tihiin soo dhaweynta qiimaha badan intaa kadib waxaad ka warqabtaan dalka waxaa ka socota doorasho oo doorashadii aqalka sare ayaa waxay baraysaa heer gabagaba ah waxaa kaliya ka harsan 54 xubnood ee aqalka sare 6dana isbuucan soo socda ayaan rajaynaynaa inay noo soo gabagabowdo hadduu ilaahay intaa kadib waxaa loo gudbayaa doorashadii aqalka hoose ama golaha shacabka oo ay tahay
inay ka dhacdo laba magaalo statekiiba oo hore loogu astay heshiiskiina ahaa annaga marka ujeedkeennu oo aan halkan u nimid waxaa waaye in stateka maadaama ay ka mid tahay goobaha loo astay magaalada Beledweyne inay doorasho ka dhacdo inaan magaalada Beledweyne u nimaado number 1 inaan kormeerno oo aragno goobihii loogu talagalay doorashadu inay ka dhacdo koow labo inaan iswareysano maamulka halkan ka jira magaalada ka jira ugu dambeyntii gunti iyo gunaanadkii munaasabadan lagu soo dhaweynayay gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo waliba heer dowlad goboleed ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Cismaan Jeete isagoo markaasi ku nuuxsaday in magaalada Beledweyne ay diyaar u tahay in lagu qabto doorashooyinka heer federaal ee markaasi la doonayo in lagu doorto xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee markaasi ku matali doona gobolka Hiiraan gudiga doorashooyinka soo dhawaada dadka reer Beledweyne waxay ku kaftameen baan rabaa inaan idin hor dhigo waxay yiraahdeen gudigu markuu noo yimaado yuu naga tiginahay nala joogo sanaadiiqdii doorashada laga daba keenay ilaa sanaadiiqdii laga keenayo hay nala joogay yiraahdeen horta waxaan maanta rabnaa inaad si cad noogu kalsooni gelisaan electionku halkan inuu noqonayo haddii kale kabtankii reer Beledweyne ka dhabaynayno sanaadiiqdu inta ka imanayso halkan aan aad iyo aad mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada annaga ilaahay waxaan ka baryaynaa waxa ummaddu maanta isaga uur tahay in alla u suuro geliyo oo ay tahay hal qof oo maanta Beledweyne joogto oo electionku halka inuu ka dhaco aan aqbalsanaynin ma jirto Cabdisalaam Wardheere VOS TV Muqdisho